England inta badan kooxihii waaweynaa la kala adkaan waa si siman ayaana la isugu garab dhacay. Dhammaan kooxuhu waxay ku jireen dhibic raadin marka laga soo tago kooxaha qaar oo isku diyaarinayay inay guulo qaataan. Liverpool oo sanadka rajadeeda horyaalku fiicnaa dhowr kulan ka hor ayaa barbaro la kulantay waana xanuun kale oo lagu sugootiyey macallin Klopp. Bowen oo lamarka 20aad qaba ayaa jawiga garoonka la wareegay waxaana uu hoggaanka u qabtay kooxdiisa West Ham. Sidaas ayay Liverpool ku bilowday raadinta goolka koowaad. Waa shaqo dheer oo soo kabasho u baahan. Klopp oo uusan weli waagu u baryin ayuu Robertson neefta ku soo celiyey. Golayaha kooxda West Ham baa qabtay shaqo aan loo dirin oo goolkii labaad ayuu Liverpool u ansixiyey. Intaas laguma istaagin. Antonio ayaa sheekada soo xiray ciyaartana ka dhigay 2-2 oo Liverpool rajadeedii ayaa gol lagu riday. Si la mid ah Chelsea oo la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa ciyaar barbaro ah 2-2 la gashay. Waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelaya kulanka barbaraha ku soo dhammaaday waxaa ka mid ahaa in laga bixiyey wax ka badan 8 kaar oo digniin ah. Sidoo kale 2 gool ay aaladda VAR ka diiday naadiga Chelsea, taas oo muujinaysa sida ay ciyaartu u adkayd. Chelsea weli waxay ku jirtaa jidka soo kabashada iyadoo la og yahay inaysan sanadkan ka soo muuqan karin tartanka Champions League. Man U Burnley ayaa barbaraysay waana barbaro kale oo aan kooxaha waaweyn u wanaagsanayn, laakiin waxaa muuqanaya in dhammaantood aysan u diyaar garoobin inay wax weyn kala soo laabtaan kulamada ay ciyaarayeen. Manchester waa iska Manchester oo naftirkeedu way ka warhaysaa sanadkan inaysan wax badan ka dhex goyn karin horyaalka Premier League ee waddanka England. Ten Hag iska daa inuu wax saxe waxa uu la dhibaatoonayaa sidii uu kooxdiisa u maamuli lahaa, waxaana muuqanaysa inuu isagu badaal ku dhex dareemayo gudaha garoonka iyo kulamada qaarkood. Premier League wejiyo kale ayuu la soo baxayaa kulamada dambe.